بسم الله الرحمن الرحيم iyadoo oo laga duulayo qaraarkii golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay soo saareen 11kii bishan Maajo ee 2023 oo ku saabsanaa adkeynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka iyo maareynta hantida guud ee qaranka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Mudane Xamse Cabdi Barre waxa maanta uu magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta qiimeynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka ra'iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ah isla markaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dawladdii dhexe ee Soomaaliya ka hor 1991kii iyo marka uu tixgeliyay baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi waxa uu magacaabay xubnaha 8 ah ee soo socda oo kala ah كو مدن أبشر عمر هروسة وزيرك أرمها دبادة حبين لابو مدن دكتور علمي محمود نور وزيرك مالية حبين سدح مدن جبريل عبد الرشيد حاج عبدي وزيرك جناحسي حبين أفر مدن إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير وزيرك حولها جود حبين شن مدن يوسف حسين جمعالي مدالي قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقدشة حبين مدن دكتور عثمان علمي جولاد جريغانك جود قرنك حبين مدن أبشر محمد أحمد أبشر بقاري وزير الدولة مدحتوية حبين مدن حرسي جامع جاني وزير الدولة حفيز كرئيس الوزراء حبين سو علمتها أنت ذا قرنك وح الله كله هرمرنا يا يدو أول تحقلنا يا باهذا الله قبو إن لقفلي هذا جذا برشة أما باهذا أي دولة أقبته إن أي كفلسو شغال قرن واجبات جودي جن وحى ونقنيا كو تركوب كهنتدا هي هذا الدولة ده سيدا وزارتها هي هذا ماذا حبنان الدولة ده هي الدولة ده هوسي لابو سؤالين تهنتدا قرنك سيدا شرع الدرجة الله هيستو سدح قيمين تحالها أي كسوجين هنتدا قرن لا تركوبي أفر كسو طلبحين تندامينتا hantida qaran ee la soo celiyay iyo sida ugu haboon ee loo adeegsanayo u adeegida bulshada iyo shan u soo gudbinta ra'iisul wasaaraha warbixin dhameystiran ee geedi socodka soo celinta hantida qaranka haddaba dawladdu waxa shacabka Soomaaliyeed ay ka codsanaysaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddigan ra'iisul wasaaruhu soo magacaabay isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadka loo igmaday wabillahi tawfiiq